xabad-sawdada waxay ugu horaysaa miraha laga helo caafimaadka, waxaana lagu daaweeyaa cudurro badan oo aan halkan ku xusi doonno oo badankood tijaabo iyo cilmi baaris lagu arkay. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa inoo sheegay in xabad-sawdada ay dawo u tahay wax weliba marka laga yimaado geerida. xabad-sawdada waxay ka mid tahay geedaha aad loo diraaseeyey oo dad badan ay wax ka qoreen, waxaana la qiyaasaa in ku dhowaad 300 oo diraasado oo kala duwan ah laga sameeyey qaabka ay cudurrada ula dagaasho, la dagaalanka infekshanka, gaar ahaan cudurrada bakteeriyada ay keento, xoojinta difaaca jidhka, iyo ka sifaynta jidhka sunta iyo waxyaabaha khatarta ah. xanuunnada la arkay inay daawo u tahay oo si dhaqsi ah looga bogsado waxaa ka mid ah madax xanuunka, ilka xanuunka, hergabka iyo durayga, xanuunnada dheefshiidka ku dhaca, xanuunnada lafaha, neefta iyo sanboorka, xajiinta iyo alerjiga, sokorowga. saliidda qaababka loo isticmaalo waa in la marsado ama la cabo, iyadoona lagu qasan karo cabitaan kulul sida shaaha iyo caanaha. waxaa kaloo lagu dari karaa biyo kulul, kadibna uumiga ka soo baxa ayaa la isku huurin karaa markii lagu daaweynayo caburka, xiiqda iyo sanboorka. xanuunnadan aan kor ku soo xusnay sidee loogu daaweeyaa xabad-sawdada? neefta, qaado buuxda oo saliid xabad-sawdo saafi ah, ku qaso koob kafee ah 2 jeer maalintii, korkana marse habeen kasta muddo isbuuc ah. sokorowga, dhaqaatiir u dhalatay dalka Hindiya waxay sheegeen haddii koob buuxo oo miraha xabad-sawdada ah, koob haafkiis miraha geedka begelka iyo koob haafkiis qolofta rumaanka, kadibna la isku shiido, kadibna qaada haafkeeda oo wax shiidan ah lagu qasto qaado saliid xabad-sawdo ah, subax kastana quraacda ka hor la isticmaalo muddo bil ah. waxay sheegeen inay sokorta ay dejinayso oo qofka daawo kaga maarmi karo. murqa xanuunka, sidoo kale ku daliig meesha lagaa hayo muddo 5 daqiiqo ah. xanuunnada lafaha iyo romatismka, sidoo kale takhaatiir shiinees ah waxay sheegeen haddii saliid xabad-sawdada la qandiciyo kadibna lagu daliigo halka ku xanuunaysa ilaa jidhka si fiican u gasho, kadibna hal qaado oo saliid xabad-sawdo ah la cabo 3 jeer maalintii, inay daawo u tahay xanuunka romatismka. ilkaha iyo cirid xanuunka, miraha xabad-sawdada oo lagu kariyo khalka, kadibna ku dar saliid xabad-sawdo subax kastana ku cadayso. quumanka, carruurta quumanka ku soo noqnoqdo, waxaa dhuunta loo mariyaa saliid xabad-sawdo habeen kasta markii ay jiifanayaan, subaxdiina iyadoo shiidan ayaa afka 2 farqaadkeed loogu shubaa. tanina waxay ka hortegaysaa bararka iyo infekshanka quunka. waxaa jira xanuuno kale oo dhowr ah oo xabad-sawdada lagu daweeyo, dad badan oo tijaabiyeyna waxay ku sheegeen in xanuunahayay ay kaga dawoobeen. taasina micnaheeda ma ahan in xabad-sawdada cudurkii baaris lagu ogaaday keliya inay waxtar u leedahay.